xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle gaar ahaan kuwa ka soo jeeda beelaha lixda Shidlo ayaa ugu baaqay odayaasha dhaqanka beelaha Shidlo inay dhameeyaan dhammaan khilaafka ka dhex jira beesha dhexdeeda. Xildhibaan Abduqaadir Faarax Shuutaale oo ka tirsan xildhibaanada beelaha lixda Shidlo ayaa sheegay in khilaafka u dhaxeeya beelaha Shidlo uu soo bilowday soo xulista baarlamaanka Hirshabelle. waxaan Google dhigay degmada Jowhar si waxa laga soo qayb galay oo aad u sareyso meeshii waa ku hadalnay waa isku afgaranay sabca walaacana ka dhacday sida isku ogeen kadibna waxa loo go'aamiyay bacdama lix qabiil kala matalno in cid walba beesheeda ay si gaar ah ay u soo aragto oo wixii mugdi ka jira ayagana ay soo saxdo kadibna Google guud isku yimaado ilaahay mahadis anaga oo heshiiskaas ku guuleysanay sida la wada ogyahay oo caalamka dhan la ogeysiiyay oo saxaafada ay goobjoog ka ahaayeen kadib intii aan ku maqanahay qabiil walba xildhibaan walba inuu qabiilkiisa si gaar ah u soo hadlo waxaa dhacday in qayb ka mid waxaa lagu heshiiyey Shidlo markaas lix qabiil ahaa waxaa soo istaagtay 18 nabadoon sheeganayo xildhibaan walbana waxaa loo xil saaray inuu beeshiisa oo ka keeno nabadoonka saxda ah oo bulshada ay ku kalsoon yihiin saas darteed 18 nabadoon bacdama ay Shidlo lix qabiil tahay waxaa ka soo baxay lix nabadoon nabadoonadii ayagana soo noqowayo carafku u yeelawaayay ay waxay noqdeen nabadoon xanaaqsan kuwaasay waxay ka baxeen shirka annagana ma ka daalino ilaa hadda waa daba taaganahay intii aan barnaamijkaas ku jirnay marka aad ugu weyn oo Suudaanka waxay ku saabsan tahay waxaa la shaqeysay dowladda federaalka marka dowladda la shaqeysay aad Suudaanka loo jeediyay noocaas ay noqotay arrintii marka daba galnay gabagabadiina waxaa dhacday in ay shirka ka baxaan haddii aan u sakriyo dhaanimaya barnaamijkan anagu noo gaar yahay wiilna Google kalaano dhaman inta kamarmana weelna suga waxaa dhacday in ay sameeyaan maxaa raadinaya Suudaankii waa ka takhasusay waaridni marka arrintaas arrin ay Shidlo u tahay iyo waxa ku raacsan yahay ma aha anagoo xildhibaanadii waxaan ka ognahay ma laha qaasitan aniga waxaan ahay xildhibaanka beesha baare oo beesha Suudaanka uu ka duwan yahay dhanka kale xildhibaan Sikriyo Suleymaan Maxamed ayaa dhankiisa ugu baaqay dhammaan beelaha lixda Shidlo inay isugu yimaadaan miiska wada hadalka si loo xaliyo dhammaan khilaafka ka dhex jira beesha dhexdeeda. sida ognahay beesha waxay leedahay hoggaan ay leedahay hoggaan oo intaasoo sano soo duwana jiro oo beesha ka dambeeso maanta in la dhaho waxaa sameynayna hoggaan kala sameynayna ayadoo aan loo dhameyn oo dad dano gaar ah ka wataan oo ayaga rabaan inay danahooda ku fushadaan inay maanta arrimahaas ka shaqeeyaan waa wax aad iyo aad loogu xumaado haddii aan nahay anaga xildhibaanada waxaan mar walba u taaganahay sida danta beesha ay ku jirto inaan mar walba ka shaqeyno waa jiraan dadaalo badan aan sameynay oo anaga dadka isugu soo duweyno waana waxa u taaganahay mar walbana waa u taagnaa doonaa mana ka fadhiisanayno ilaa xal waara laga gaaro sidoo kale waxaa si degdeg ah ugu baaqaynaa in miiska wada hadalka la isugu yimaado arrimahan ay jiraan oo la xaliyo oo maanta la noqdo hal hoggaan waa leenahay hoggaankaas inta lagu dawfeelo lagana fiirsado waxyaabaha oo dadka danaha gaar ka wataan qaabkay u fikirayaan iyo waxyaabaha ay ayaga rabaan inaysan u suurtagelin anaga haddii aan nahay xildhibaanada mar walbaba waxa u taaganahay inaan arrintaas ka dhabeeno wadadeeda saxda ahna aan marino. Yusni Maxamed Axmed, Bulsha TV, Jowhar. shirkadda Somtal ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai mobaylo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtal sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaadii asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad
tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefonkaaga kadibna geli telefonka qofka aad doonaysid inaad u codaysid adigoo u diraya lambarka 5000 waxaanaad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama bilaash